أتوسيكتك متناي كل محيط متناي أتوم ذعكوي كوكسام يمني كرمالي naanka la leeyahay cawaale aadan daahiye oo la sheegay saacadooyin yar oo kooban in baraha bulshada muuqaal uu cawaale aadan daahiye soo dhigay hees uu ku karbaashayo qoftiisa hore ee Mrs. Xiis si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanayo gambaleelkan u furanayo muuqaalkana like talaayo wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag fanaanka la leeyahay cawaale aadan daahiye oo hees baraha bulshada gaaban uu soo dhigay muuqaal uu iska soo duubay heestaas oo la sheegay in qoftiisii hore Mrs. Xiis uu karbaash aad u kulul uu ku karbaashay heesta oo luqadda uu ku heesayo oo la fahmin dadka qaarna ay leeyihiin Faransiis ama luqad Afrikaana ay tahay cawaale aadan oo taasi uu la dan lahaa in luqaddu ku heesayo la fahmin maadaama hadda uu karbaash kulul qoftaasi Mrs. Xiis kala kordhacayo uu karbaashka heesta kululna oo aad ay u qabsatay baraha bulshada fanaanka la leeyahay cawaale aadan daahiye oo muuqaalka markuu iska soo duubay dadka qaar ay faleeqayn karaan heesaha iyo dad badanna ay ku sheegeen luqaddu iskaga soo duubay in ay heesta meel ay u socoto ay karbaash kulul tahay maadaama barihii ugu dambeeyay calaaqaadkooda cawaale iyo Mrs. Xiis ay la ogaa si xun in ay ku kala tageen haddana oo eedeynta dhanka kale ay ka jirto in uu daayir cali soo ku eedeynayo cawaale oo hadda laakiin karbaash kulul heestiisa kala soo kordhacay qoftii eed Mrs. Xiis iyo lamaanihii Mrs. Xiis ay ku kala tageen cawaale aadan daahiye fanaanka la leeyahay cawaale aadan daahiye oo luqaddu ku heesayo iyo codkiisaba intaba luqaddu ku heesayo ee dad badan ay dhankaasi ay leeyihiin luqadan waa luqadda Afrika dadna ay leeyihiin luqadan Faransiis ay tahay ay qof ayuu ku karbaashaya heestan waa karbaash kulul ay ku socoto Mrs. Xiis maadaama oo barihii ugu dambeeyay markii cawaale iyo Mrs. Xiis ay ka tageen Mrs. Xiis ay imaaday magaaladaasi Muqdisho booqashana ay imaaday uu ku soo dhaweeyay daahir cali soo cawaale oo hadda hees kulul oo karbaashkeeda wadato kala soo kordhacay qofta la leeyahay Mrs. Xiis heestana dad badan markay zaa'id u daawadeen ama muuqaalkiisa cawaale ay daawadeen heesta ay noqotay hees karbaash ah oo cawaalena meel ku duqeynayo oo haddana dad badan markay faleeqaayeen cawaale oo kaliya ay dood iyo muran dhex taalo qoftii hore ay kala tagayeen Mrs. Xiis dad badanna ay badhaheen heestan iyo karbaashkeeda waxay ku socotaa fanaanada la leeyahay ee Mrs. Xiis muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa daawade wixii fikir aad ka qabtid qaybta commentiga noola wadaag like-tana muuqaalka saar ha ka iloobin soo dhawow daawade أتوسيكتك متناي كل محيط متناي أتوم ذعكوي كوكسام يمني كل